war ayaa sidoo kale caawa sheegaya Barcelona in ay la xiriirta kooxda Arsenal waxayna doonayaan baa leeyahay ciyaartoyga Bellerin cimaamad weeyaan ka weynaada sameedii ka weynaada nimadana weyn baatiinay Barcelona baatii markaas sameeda ku haysaan canugii lagu dheelay 10 loo dhigay wax u dhigay waa la waayay 10 cunugaayay nimanka weyn waa fahansi kari weynay wariyahay sameedo Alves ma noqon karo waa kula daalnay kadib cunugii Kanadiyaanka 10 u dhigay waa waxay raadinayaan Bellerin baa raadinaya ay war ku leeyno war ayaa sheegaya oo sports caaw soo warinayo in Barcelona madaxdeeda ay la xiriireen kooxda Arsenal gaar ahaan director kooxda Arsenal idu bay la xiriireen Bellerin waxaana Barcelona doonaysa inay qaadato 25 jirkan waxa la sheegay lagu heli karo lacag dhan 3 milyan bay doonayaan ku qaataan Barcelona Bellerin Hector Bellerin marka Barcelona kadib ma sameeyaan doonto sameediyo Barcelona gudub bay doonaysaa Bartay ayaa wada hadaladii Atletico Madrid u socday diiday in heshiiska loogu kordhiyo waxaana ciyaartoygu sugaya Bellerin dalab kaga yimaada kooxda Arsenal ku biir doonaya ciyaartoygu Gano marka Bartay Arsenal ayaa ku dhacayo Arsenal baa ku dhacay marka Bartay wali inuu ka tago Atletico buu rajaynayo ciyaartoygu diiday inuu heshiis u saxiixo kooxdiisa isla Arsenal buu sugaya waxyaabaha kale ugu weyn waxa kamid ah goolahayi Arsenal ya ilmiya san u buuqa ka warniyo bariyaha ilmo jiraan keed waa la nacay markaas waxay leeyihiin Messi Ronaldo bedelayna waati hadda kor Enrique la ciirin rabay markii uu Messi bedelay waati Ronaldo markuu taatay sidaan isaga xataa isku kaceen odayaasha ma la taaban karo maxay leeyahay Ronaldo iyo Messi bedel arabtina badashin ilmi yariiska bedel diidaya hadda waa kan Arsenal dhibaatada taagan bal fiiri Arteta waa wareersan yahay goolahayiisa kuwad xagaagan buu ku wareersan yahay Malena baan ka dhigaa Emiliano Martinez baan ka dhigaa intuu leena dhaawacnaa buu Emiliano Martinez weyn noqday hadda Emiliano wuxuu taagay wadaan goolahay kuwad kooxda leega dhigeen waa baxaya hadda warka gudub waxay leeyihiin Arsenal ayaa dalabkii labaad ka heshay leeyahay kooxda Aston Villa waxaana laga doonaya koox ciyaartoyga lagu magacaabo Emiliano Martinez oo Aston Villa waxay ka faa'iideysanaysaa dagaal ku dhaxeeya Arsenal ee dhanka goolhayaasha ee la isku hayo iyo goolhayaha kuwaad ee wanka laga dhigaya warka gudub waxay leeyihiin lacago 15 milyan ay dalab ka soo direen bal Aston Villa ay ku doonayaan Emiliano Martinez marka Arteta waa isku buuqsan yahay oo waxa uu leeyahay war ma leeneeya mise waan Martinez ayaa maxay labadii goolhay ayuu ku wareersan yahay oo leena Martinez wuxuu leeyahay war ma anigu cunuga foodheeraha ee madaxa xirtan ee Jarmalka ayaan ka u fariisanaya war anigu miyaan ahay ninkii Community soo qaaday oo miyaan ahay ninka soo qaaday FA Cup-ka ma yeelayo leeyahay hadda warka gudub waxay leeyihiin Aston Villa ayaa dalabkii loo soo dirtay waxa laga yaabaa Arsenal ugu dambeyntii inay lumiso goolhayaha kan ee Emiliano Martinez mid kale Arsenal war yaab loo soo baxayo cabsiya oo ninka la yiraahdo yaa bariyahan ninka la yiraahdo Arteta aad baa looga yaabana kooxdiisa waxa la war Arsenal waa kacsan tahay war Arsenal waa bariyahan waa soo kacsanaatay markaan qatar bay noqdeen war cid cumadooda lama haysan karo war Liverpool bay garaaceen laba jeer hatta Chelsea xitaa waxay ka qaadeen koobkii kale FA Cup-ka marka cid aad bariyahan loo amaanaya laakiin bidowga ciyaaraha Premier League wuu naxsan yahay bal ninka lagu magacaabo Arteta maxay yeelay David Luiz kiisa ayaa xogaa dhaawac qoorta soo gaaray bal leeyahay waxa laga yaabaa inuu seegi doono ciyaarta ugu horeysa Premier League ee Fulham bal leeyahay Arsenal David Luiz wax kale ka ahmugtahay maxay yeelay wax kale oo dhaam waa la way inkastoo laakiin aawi muxuu ahaa Gabriel ka hadda la keenay iyo Saliba ayaa joogay ma ninkan waa arag weyn weeyane hadda wargeyska Atlantic wuxuu soo warinaya ciyaartoygu dhaawac inuu qoorta ka qabo laga yaabo inuu ciyaarta soo aadansiin karo marka Arteta cabsi weyn baa gashay bal kulkiisa ugu horeeya ciyaaraha Gandusi waxay war ku leeyihiin xilli ciyaareed kale inuu sii joogi doono ayaa laga yaabaa kooxda Arsenal ciyaartoyga ayaa ah mid dabeecad laaba ah isagii Arteta xataa isku dhaceeno laakiin hadda waxay war ku leeyihiin inuu iska sii joogo waa laga yaabaa Bartis wuxuu ku soo qoray 2 ciyaarood 6 dhibcood baan gacanta ku dhignay aad baan ugu faanaya kooxdeedu marba hadduu Arsenal leeyahay waxa leeyahay karo inuu sii joogayo baa loo maleynayaa canugii madaxdaashka ahaa ee dabeecad laabaha ahaa dagaal uu ka bilaabay ciyaartii Brighton ilaa hadda isagoo Arteta way isqaban waayeen markii uu iska sii joogo laga yaabaa mid kale waxa jira ugu miisan inuu ciyaar waa ninkii Ozil ahaana Tottenham buu maradu ka ridayaa wuxuu leeyahay haddaad rabtid inaadan koob qaadin Tottenham ayaa la aadaa ama ciyaaru waa laga fariistaa midaas buu jirta Ozil mar la weydiiyay war Ozilow iyadu ka waran koomiyad ka daashay wuxuu hadalkiisa u muuqdaa uu leeyahay war aanu koob kama daalin koob waliina ku guuleysta waa rabaa uu leeyahay haddii aan doonaynin buu leeyahay koob ku guuleysto yaa waxaan iska aadaya halkaa macnuu Tottenham buu kala jeedo Tottenham baa koob lagu qaadin tani 2008 Tottenham wax koob lama geyn agteeda wax weeyaan markaas lagu leeyahay Tottenham Spurs lixda sare Premier League ku jirta lagu leeyahay wariyahana waalina shaqo marabtiine ya gadaashadu waxa la aasaasay kooxda RB Leipzig la aasaasay ba sanadkan iyagu reebo wad arkaysane ya marka waxa weeyaan Ozil wuxuu leeyahay haddaadan rabin inaad koob ku guuleysato haddaadan rabin weeyaan inaad koob aadan qaadin Tottenham la iska aadam ciyaar waa laga fariistaa ilaa haddaad ciyaaraha ka fariisto koob baa ku soo kordhay ilaa koob ciyaar wad ka fariisatay
ama haddii kale Tottenham la ilaa waa iska ciyaaro koobnimo qaadan buu leeyahay inuu Tottenham ayuu marada kaliya wuxuu leeyahay Tottenham ayaa la iska aadam waa laga fariistaa ciyaaruhu haddaadan ba koob rabin Man City waxa la sheegay in Arsenal tartan adag la galayso saxiixa ciyaartoyga lagu magacaabo Osam Aouar oo ah ninkii Man City khadka dhex ka qabsaday habeenkii Lyon iyo Man City oo sida warkaas ay soo warinayaan wargeysada ugu afka dheer Ingiriiska waxay leeyihiin Arsenal istiba dagaalku isugu jiro City baa tartan ku soo birtay Osam Aouar Gareth waxay doonaysaa in Gandusi ay u gacan galiyaan kooxda kubadda cagta Lyon heshiiskan qayb ka dhigaan balse kooxda Faransiisku ma xiiseynayaan heebka kan naga qaata iyo heshiiskan qayb ka dhignay hebelkan iyo kan aan kaga bedelanay marabta leeyahay marka saas daraaddeed City qudheedu way doonaysaa leeyahay Osam Aouar William Saliba ayaa la sheegay inuu Arsenal u safar doono kulkiisa ugu horeeya ciyaarta Premier League u dhaxaysa Arsenal iyo Fulham maalinta Sabtida soo aadan Arteta maxay yeelay wuxuu waayay doonaa David Luiz oo dhaawaca ninka Faransiiska ayaa ciyaar doona leeyahay marka waar kuwa Saliba Saliba waa idin ciyaaraya Arsenal Saliba ciyaarta ugu horeysa uu ciyaaraya leeyahay